aniga haddii aad dhinto waa lay mishimay waxaana i dishay xaaskayga labaad aan qabo gabadha iyada la dhalatay oo aniga xilka aan kala mudannahay niyo fiidiyogan meelar ha lii gaarsiiyo taliyaha booliska Soomaaliyeed ha liigu shaargareeyo kan gobolka Banaadir macluumaadina ha liigu shaargareeyo maxkamadda Daar Cali Soona laga rido garas baalay aniga 6 sano deganahay guriga aan deganahana aniga askari milkidayda waa ku noolaalahay hadda koor habeen 7 saac rag igu soo weerartay aniga waa xishoonaay laakiin baasha alamtare soo dhaaftay 7 saac rag ii keentay markaas inta isku diri gaareen ragaasna qaraaba ahayn gabadhaas wiil iga cishanaay lama dhalanin aabana ma qabto aabeed waa dhintay adeerka aabeed la shan ma noolo runta rabbi aan ugu jecel afxumo waa ka joogi la ahay wiil ee iyada dhasho yar oo gurigeeda joogo waxa leedahay ninkaas ka kor qeelinaayo aniga ilmo waa ii joogan mana aqaan aniga sabab ilmo uu kor qeelinaayo sidii loo joogay handal wiil kale oo iyada gurigeeda joogo oo ay qaraabo ay yihiin waxay tiri oo nin weyn habeen dhaxdaas waxa la maan habeen hore 7 saac laga soo wacay lambarkiisa waxa la ninkaas ka kor qeelisay aniga qomay miihi gabadhaas waxa iga rabtay waa ogahay gabadhaas waxa waa inaa isdilno ama ragaas ku dhameeyna u socotaa tol iga cishanaay ma qabto qof kasto oo Soomaali gurigeyga hadii oo dhibaato ay soo gaarto gabadhaas ay soo gaarsiisay waxyaabo badan aan rabaa inaan ka hadlo garas baalay maalinka aan dagay weerarka ugu bilowday ilaa hadda ugu wadaadeen ugu malahan qof ilaahay baan ka qaado waayo hadii ay run sheegayso fagaaraha imaato ninkan waxaas ku lahay dhaado aniga qumaymiye waa dhaqana oolaada ii joogto gabadha walaasheeda aan qabaday ugu haysato aniga inaan furo mar hore ka diiday xilaan kala mudanna xishoodan kala mudanna kala wareegsan waa diiday hadda koor waxay ii soo wadatay gabadha aniga aan qabo wiil ay kala tageen intii igu keentay iyadoo gabadha aniga aan qabo gabadha ninkaas ay u dhashay xoog ugu doonayso hadii aan isdilin lahayn yarkaas iyada isku kaaya mashintay walaalkay in adeerkay ahay wiilasha 7 saac ay keentay waa joogan gurigeyga habeenkaas dad joogay hadii aan isdilan iyada isku keenay dishay ninka weyn oo qaangaarka ah aniga waa iga dul qaarisay dhahayo hadii aan isdili lahayn iyada isku keenay dishay shala markii aan sharciga u dacwooday oo gurigeeda aan tagay oo ilaahay ugu og yahay oo ciidan biliis la igu diray oo ninka gurigiisa soo aflagaadeena oo sixrooba taay dhahay oo iyada ay soo sheegtay aan qaba isdhahay oo sharciga geey wuxuu ugu maagay iyada ka soo horeysay hooyadeeda waxay tiri sida goofkan aan ku joogi lahayd raba goofkan aniga nisboosa ku leeyahay Soomaalina meesha rabtay wax ka gada kartaa arfaanay fiidiyoga Daar Cali Soona laga gaarsiiyo maxkamadda Daar Cali Soona in qof taas la kora u baahanahay oo runta ah meesha iska cadeeyo waxyaabo badan jiraan dhowr jeer soo weerartay naagtaas waa iga xishooweysay waxa iga rabtana waa ogahay laakiin hadee difeete ay gaarto naagtaas loo haystaa hadii gurigeyga oo dabka kaco hadii gaarigeyga difeete la gaarsiiyo hadii aan habeen madow meeshan baadiyo waa oo ji soo socda la dilo naagtaas ay mishintay hooyadeedna waxay tiri goofkeena saa ku joogi leedahay rabaa hooyadeed iyada ka cabsootaa qof kasta og naagtaas iyo hooyadeed oo iyada ka baqayso oo iska maskiin ah weerar ugu ah mid kala jirta oo iyada la dhalatay oo saasoo kale ii weerari jirtay oo dulmigeeda aan ka joogi waayay ilaahay oo saday ilaahu naxariistaani dacwo ka mid taas gabadhaas tol iga cishanaay waa waayay inay gacanteeda gaartaa u maleynaa intaan kadib meel u socdo malahan gurigeyga ana iska dhiigeedu waa iga dhiig muslim hadee tolleeda tolkeeda iga qabsadaano hadee caawa ay gaaraan ama gurigeyga dhibaato ay gaarto naagtaas ay gaarsiisay naagtaas tol iga cishanaay ma qabto wiil la dhashay malahan oo runta u sheegayo walaal kale oo maarta adeerkeed aabaheed la dhashay oo dhalay xitaa ma jiraan aabaheed ma noolo iyada kaligeeda ay hujuumoos iyo gabar kale oo la dhalatay oo hadda dhimatay hooyadeedna waxa waa iyada ka dambaysa goofkan saa ku joogi lahayd war ma ahan aniga goofkan xoogayga ku jooga waa soo shaqeystaa dad bandhacoon isbooskayga anaa ku qaran Soomaaliya garta ilaahay leedahay intaas qarinay ee weeraraysa naagtaas fiidiyogan waxyaabo badan jiraan aan halkan ugu hadli karin Daar Cali Soona lagu shaargareeyo gabadhaas xaaskeyga labaad ee la dhalatay xaaskeyga waa jeceshahay waxay ugu haysatana waa ogaay runta rabbi aan ugu jecel intaas oo sano ee duumeysay rag ay wadatay isu kaaleynaysay birta noola qumay inta soo dhigtay war aniga qumay miyo xoogayga cunaa quruxdaas ilaahay siiyay fiidiyogan qof kasta oo Soomaaliyeed ha ii shaargareeyo naagtaas weerar ugu waa ka noolaala ahay iibaanka ilaahay ka qaaday 4 saacni maray guriyeyga keenay hadda ka habeen 7 saac wallahi billahi tala raga keentay qaraaba noqonay gabadha aniga aan qabo wiilka furay soo waday markaas waxay tiri gabadhaada ka wado iyada ilmaha haysata inay isku kaalaysan rabtay wiilkeeda ee iyada dhashay waxay tiri waa kor qaylisa aniga ilmo waa ii joogan 12 daada dhalay sabab cunug saxiir ah oo kor qaylay ma aqaano walaalayaal hadii ay Soomaalnimo ay jirto naagtaas aniga waxa waay markii inay isdilna u soconaa iibaanka ilaahay ka qaaday nolosheeda ugu haysata ma haysto ma raasado jidkeeda ma mar ereyadeeda ma mar 4 saac fuustay ii soo riixay waana u sheegay hadda koor qofka kula dhashay oo saa ogeed ii xumay jiray oo na weerari jiray xaqa ilaahay ka soo saar ummadana ilaahay ka qabtay mana ka cabsoonaay hadii ay iga leexaweyso
والله بالله يطلع إنا جعنتي صوصتا أمالنا وإيجا دبا جيسي وكان ولا لا سمعتي ذا لا دقا شيء لكن عادي سمعت هذا الدلمي وحا إيجا ربتا أوجاي وكادي ذا ولا شيء إلهي كبقى كلها إيبان كعكاب عن كلا حشون مديدنو ومد الصومالي ها أوجات وحياة بدنا وشيء دون أو دباتون وهالكان عكسو كوبي كرين